kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socota ay meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa ka mid ah Tigreega oo gudaha u galay wadanka Eritrea kadib markii ay jibiyeen furimaha hore ee dagaalka ee u dhaxaysa xadka dalka Eritrea iyo deegaanka Tigreega waxayna sheegtay warbaahinta dalka Eritrea in ciidamada Tigreegu ay gudaha u soo galeen in ka badan 150 kilomitir wasaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka dagay caasimada deegaanka Canfarta xilli shacabka deegaankaasi ay gabi ahaan badiideen inay ka dagaalamaan ciidamada dalka Eritrea ee ku sugan deegaanka Canfarta TPLF oo jawaab aad u adag ka bixisay hadalkii ka soo baxay qaramada midoobay iyo Itoobiya oo dhaqaale burbur ku dhacay Mustafa Cagjar oo wadnaha farta ku haya qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsanaya warkeena kaga bogan doontaan historia ay gula sugan saaxiibka daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daacad waan dhawaysnaw haddii aynu ku bilowno xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaaladii ka socday iyo Tigreega sheegashada ay sheegeen inay gudaha u galeen dalka Eritrea bal adoo noo faahfaahinaya maxaa la kala maraya maxaa ugu dambeeyay xaaladii adkeyd ee ka taagneyd gudaha dalka Itoobiya santaag waad mahadsan tahay saaxiibada hawada nagala socdana waan salaamaynaa guud ahaantood meel walba ay ku sugan yihiin iyo xaalad walba ay ku sugan yihiin intaasi kadib dagaalada ka socdo dalka Itoobiya waxay galeen bishii labaad sidoo kalena dagaalku wuxuu yeeshay wajigii saddexaad iyadoo ciidamadii kaydka ahaa iyo shacabka dalka Eritrea si weyn loo hubeeyay halka taliska guud ee ciidamada Itoobiyana lagu wareejiyay Isaias Afwerki kaligi taliyaha xukuumadda dalka Eritrea intaasi kadib warbaahinta Dar-Iisha Casmara Reporter ee ka soo baxdo dalka Eritrea gudihiisa warbixin ay daabacday ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada TPLF ay gudaha u galeen deegaanka dalka Eritrea kadib markii ay ka gudbeen xuduudaha deegaankaasi oo maalmihii u dambeeyay ay dagaalo lagu halaagsamay ka socdeen deegaamada Baadhame, Trezona, Salambasa, Shireero, Shire oo ciidamada dalka Eritrea ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan magaalooyinka Aksum, Adigrat, Shire, Shareero iyo sidoo kale deegaanka Baadhame warbaahintan waxay sheegaysaa in qaybo ka mid ah ciidamada Tigreega oo soo jabsaday furimaha dagaalka lagu arkahayay in ay qaybo ka mid ah gobolka Eritrea xuduudaha ku teedsan ay gudaha u soo galeen sheegashadan ay sheegtay warbaahintaasi dhinaca TPLF wax war ah kama aysan soo saarin oo arintaasi la xidhiidha dawladda Itoobiya kama hadlan dawladda Eritrea kama hadlin laakiin warbaahintaasi waxay xaqiijisay in ciidamada Tigreegu ay hadda ka soo gudbeen gobolka Tigreega dhinaca kalena ay gudaha u soo galeen dalka Eritrea intaasi marka laga yimaado dagaalo goosgoos ayaa ka socdo gobolka waqooyi Gondar iyo sidoo kale gobolka Asia dhinaca waqooyi Wollo iyadoo deegaanka Waqoohumayra iyo Walqaytna ay ka jiraan dagaalo goosgoos ah oo aan sidaasi u farabadnayn Santiago maalmahan oo ay socdeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in ay duqeymo ka geystaan xuduudda deegaanka Tigreega la wadaaga Amxaarada iyo Canfarta iyo sidoo kale guud ahaanba deegaanka Tigreega ayaad moodaa hadda in ay istaageen lamana garanhayo in ay tahay cadaadis ka imaanaya dhinaca reer galbeedka iyo in dawladda Itoobiya oo horaanba la sheegayay in duqeymihii ay ka geysan jirtay gobolkaasi ay ku guul daraysatay kadib markii TPLF ay heshay gantaalada xawaaraha dheereeya ee diyaaradaha helikabtarada miiga iyo sidoo kale diyaaradaha droonka soo rido in ay ku halaagtay diyaaradihii Itoobiya sheegashadaasi marka laga soo tago maalmahan waxaa degan guud ahaanba jawiga gobolka Tigreega oo duqeymihii horay ay TPLF oga sheeganaysay ilaa iyo hadda ma jiraan dhinaca kalena baaqiiqdii lagu doonayay in la iskugu keeno dawladda dhexe Itoobiya iyo TPLF si xal nabadeed oo waara looga gaaro colaadda ka hulaaqaysa gobolka Tigreega laguma guuleysanin waxaadna moodaa in labada dhinacba hadda ay isku ilka beeleen maadaama oo dalka Eritrea oo aan dagaalka horay si fiican uga qayb qaadanayn hadda ciidamadiisi aad moodo in ay bataatanba burbureen dhinaca kalena dadka shacabka ah iyo sidoo kale ciidamada kaydka iyo ciidamada shaqada ka fadhiistay in uu keenayo furimaha hore ee dagaalka wagaag dacdu sidaad og tahayba TPLF waxaa dagaal kula jira dalka Eritrea ciidamadiisa oo dhan iyo awood wixii uu lahaa iyo ciidamadii libaxa Afrika ee dalka Itoobiya ciidamada militariga dalka Itoobiya waliba kaashanahaya maleeshiyaadka iyo new booliska deegaanada ka amar qaata ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bal awoodda inta leeg ee ciidamada Tigreegu ay kaga gudbeen xadka Eritrea iyo u dhaxeeya deegaankooda ee Tigreega maxay tahay xageesa ka heleen gantaaladan casriga ee ay ku jabiyeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo iskarabsanaya
horta Santiago eedaymo un weeye dhinaca gantaalada iyo inay gantaalada noocaas heleen oo ma jirto ilaa iyo hadda wax indicate garaynhayo ama xaqiiqo rasmi oo ku aadan in TPLF ay heshay gantaalo casri ah marka laga yimaado Ethiopia inay horey u sheegtay in ay soo riday mid ka mid ah diyaarado hub u waday Tigreega dhinaca kalena diyaarado kale hub u waday in ay ka gudbeen markii hubkaasi ay dajiyeen dhinaca kale dagaalka hadda socday waa mid ku dhufo ka dhaqaaqa ama dagaalka loo yaqaano luqadda qalaad gorilla war ee inta badan ay sameeyaan jamaaduhu waxaad ogeyd sanadii 2021 TPLF in laga saaray guud ahaanba gobolka Tigreega intiisa badan magaalooyinka waaweyn lagana qabsaday magaalooyinka caasimadaha ah sida Adigreed iyo sidoo kale Aksum Maqale iyo Cadwa iyo meel kasto ay gacanta ku hayeen ka qabsashadaasi kadib TPLF hawdka ay gashay maalmo kadibna dib ayay isu soo abaabushay taasoo markii dambe sababtay in ay wax ka yar 105 ilaa 90 kilomitir ay u soo jirsato magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia kadibna halkaasi ay sheegeen xaalad dagaal awgeed in ay iskaga noqdeen si waan iyo wada hadal loogu soo dhameeyay xaaladda guud ee ka taagan dalka Ethiopia marka maadaama nimankan ay yihiin niman jamhada oo lugta iyo buuraha fanan hayo oo waxa weeye technique iyo baabuur wadanin inta badan marna way guuleysanayaan marna iyaga laga guuleysan oo la soo jabin oo la soo tirtiri maalmo dhaweyto waxa laga qabsaday magaalooyinka Shire iyo Shareero iyadoo inta badan gudaha ay u soo galeen ciidamada Eritreanku gobolka Tigreega balse hadda warkan cusub ee ay qortay warbaahinta ee dalka Eritrea ee ku aadan in ciidamada Tigreegu ay gudaha u galeen dalka Eritrea ma jirto ila madax bannaan oo arrintaasi si weyn u cadayn kara dhinaca kalena TPLF dawladda dhexe Ethiopia iyo Tigreegu arrintaasi marnaba ma aysan sheeganin waliba arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli dawladaha Mareykanka Jarmalka midowga Yurub iyo sidoo kale wadamada sida weyn oo la socdo xaaladda dalka Ethiopia ama u danaynaya ay maalmihii u dambeeyay ku eedeynayeen dalka Eritrea in ciidamadiisu ay gudaha u soo galeen iyadoo dalka Mareykanka iyo Canada iyo Jarmalka oo maanta hadlayba ay sheegeen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee ku sugan gudaha dalka Ethiopia iyo sidoo kale goobaha ay ka dagaalamayaan marka lama garan kara xataa laftigeedu wuxuu mugdi weyn ku jira waxa isku soo aadiyay eedaymaha reer galbeedka ay u soo jeedinayaan ciidamada dalka Eritrea oo ay ku sheegayaan inay ku sugan yihiin gudaha dalka deegaanka Tigreega iyo sidoo kale ciidamada la sheegaya hadda ee Tigreega inay ka gudbeen xuduudda dalkaasi dhinaca kalena ay masaafo dhowr kilomitir ah u galeen dalka Eritrea isku soo duuduubo TPLF maadaama ay jamhad tahay galitaanka dalka Eritrea wayna ku soo guuleysan kartaa wayna ku guuldareysan kartaa been bay noqon kartaa runna way noqon kartaa laakiin labada dhinac hadda waxaad moodaa in la isku ilka beelay oo wax hadda la dhaho libaaxi geeska Afrika iyo sidoo kale ciidamadii geeska Afrika ugu quwada weyna inaysan sii jirin oo markii uu dagaal yimaado waxaad arkaysaa ciidamada Etoobiyaanka sida maalin walba raxanta ah kala hadhka lahayn kala waxa weeye kala beeqaanka lahayn ay isu dhibayaan TPLF ay ku soo bandhigayso furimaha hore ee dagaalka iyadoo ogtahay ama saaxiibadeena hore aan ula wadaagnay in taliskii 11aad iyo kii 37 iyo talisyo kale oo ka tirsan ciidamada militariga Ethiopia in ay hore gacanta ugu galeen falaagada TPLF wagaag dhinaca kale shacabka deegaanka canfarta waxay sheegeen oo si weyn uga hor imaadeen ciidamada Eritreanka ee ka dagaalamaya xadka deegaanka canfarta iyo Tigreegu ay leeyihiin waxay sidoo kale ay si weyn u diideen ciidamada Eritrea ee ka gudbahaya deegaanadooda ee ku sii qulqulaya furimaha hore ee dagaalka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia maanta wuxuu ka dagay caasimada deegaankaasi bal xaalka iyo deegaanka canfarta iyo sababta shacabku ay ku diidayaan in la difaaco deegaankooda maxay tahay Santiago laban u kala qaadaynaayo safarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sidaad ogtahayba marka laga yimaado safarkan hadda uu ku tagay magaalada Casmara ee deegaanka Canfarta waxaad ogeyd inuu tagay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kalena uu tagay beeraha qamandiga iyo suufka laga sameeyo ee ku yaala gobolka Oromia isagoo halkaasi fariimo iyo dhambaal u mariyay wadamada reer galbeedka dhinaca kalena uu ku sheegay in ay doonayaan inaysan Ethiopia hormarin dhinaca kalena ay uusan wax soo saarkeeda xoojinin marka safarada ra'iisul wasaaruhu maalmihii u dambeeyay way ku badnaayeen dowlad deegaanada iyadoo dhinaca kalena ay soo baxayeen in ciidamada liyu booliska dowlad deegaanada loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jira Tigreega ayna tagaan furimaha hore ee dagaalka marka laga yimaado eedaymahaas iyo sidoo kale in ay soo baxayeen warar arrimahaasi la xiriira haddana waxaa la sheegayaa xogo kale oo ku saabsan in shacabka Tigreeg in shacabka Canfartu ay diideen bataatanba in ciidamada Eritreanka ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena doonayay in ay ka gudbaan gobolka Birhale ee dalka deegaanka Canfarta
in ra-iisul wasaare abiy axmed ay ka diideen dhinaca ay si weyn ooga hor imaadeen iyadoo iska horimaad iyo israsaasayn ay u geysteen ciidamada Eritreanka halkaasi ku sugan shacabka ciidamadan diidanna waxaa la sheegay inay u sababeynayaan in ciidamada Eritreanka ay cabsi weyn ka qabaan in ay aagaasi ka geystaan xasuuq barakicin iyo sidoo kale in ay dadka shacabka hantidooda iyo maalkooda dhacaan maadaama Eritreanku xilliga ay soo galeen gobolka Tigreega ay ka geysteen dhibaatooyin lixaad leh ee gobolka Tigreega guud ahaan oo lagu eedeynayo ilaa iyo hadda hay'adaha qaramada midoobay ay soo saarayaan warbixino la xiriira in kufsi barakicin tacaddi iyo sidoo kale dhibaatayn xoogan ay geysteen ciidamada dalka Eritrea arrimahaas oo dhan iyadoo ay jiraan haddana shacabka Eritreanku waxay hadda ku doodayaan inaan loo baahnayn in ciidamadan ka soo gudbahayo dalka Eritrea dhinaca kalena doonahayo in ay furin ka furaan xuduudda Tigreega iyo dalka Eritrea in xuduudda Tigreega iyo Canfarta in ay joogaan bataatanba oo ay aagaasi ka baxaan dhinaca kalena Canfartu ay iyadu hadda diyaar u tahay in ay iyadu dagaalka gasho oo sidoo kale ay si weyn iyadu uga qayb qaadato oo waxa weeye dagaalkaasi ay iyadu ciidamadu jabiso dhinaca kale waxaa la sheegayaa Canfartu xilligii hore maadaama dagaal adag ay la gashay TPLF in haddana ay ku baaqahayaan in ay iyagu diyaar u yihiin in ay dagaalkan sii wadaan oo sidoo kale waxa weeye ciidamadan TPLF ay ka guuleysan karaan oo aan loo baahnayn in ciidamo Eritrean halkaasi ay yimaadaan arrimahaas oo dhan marka waa allegation ama waxa weeye warar uun inta badan xaqiiqadooda rasmiga aan lahaynin laakiin waxaa xaqiiqadooda inta badan la hayaa oo hadda soo baxayo in qurba joogta Canfarta ah ee wadamada dibadda ku nool maanta war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in ciidamada Eritreanka ah ee gobolkooda ku soo qulqulahayo in bataatanba laga saaro shacabka Canfartana xilligan uusan u dulqaadan karin in ciidamadani ay soo weeraraan dhulkooda oo ay soo galaan deegaanadooda isku soo duuduuba booqashada ra'iisul wasaaraha iyo ciidamadan la sheegay halkaasi waxaa ka dhalan kara tuhun ah in Canfartu ay si weyn uga soo horjeedo arrinta la xidhiidha in ciidamada dalka Eritrea ay gudaha u galaan gobolka Tigreega dhinaca kalena aagaasi ay ka dagaalamaan TPLFna maalmihii u dambeysay xasuuqyo ayaa la sheegay in aagaasi ka geysanayso deegaanka Canfartu waxa uu sheegay in 107,000 in ka badan oo shacab ay ku barakaceen dhinaca kalena dad intaasi ka badan ay dhibaatooyin u geysteen TPLF iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadkaasi in la soo gaarsiiyo mucaawino iyo sidoo kale waxa weeye waxyaabo ay ka mid yihiin waxyaabaha nolosha asaaska u ah oo sheegeen in halkaasi laga haysan dacdo markii laga soo tago dagaalada baahsan ee dhowrka sano qaatay ee ka socda gudaha dalka Itoobiya bal dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo xiriirka caalamiga ee dalka Itoobiya iyo isku xidhnaanshaha maamulada iyo dawladda federaalku waa sidee Santiago aad baad u mahadsan tahay inta badan dhinaca isku xidhnaanshaha maamulada iyo dawladda federaalka Itoobiya marka laga soo tago gobolka Tigreega waxaad moodaa in uusan mugdi hadda saa u sii weyn iyo ciriiri ka jirin oo ra'iisul wasaare abiy axmed uu asagu yahay shakhsiga sida weyn u maamulahayo guud ahaanba talada dalka Itoobiya iyo dawlad deegaanada laakiin dhaqaalihii Itoobiya waxaa ku yimaaday taniintu bilowday burbur aad u xoogan lacagtii birta ahayd waa ay qiimo beeshay shacabka Itoobiyaanka waxaa ku kacday maciishadii maanta dhaabowga ama rootiga halka xabee laga isticmaalayo guud ahaanba dalka Itoobiya ama xabada canjeerada waxay maraysaa 100 bir halka boqolkii dollarna xuduudaha iyo sidoo kale magaalada Wajaale iyo deegaanka Soomaalida guud ahaanba uu ka marahayo 9,800 ilaa 9,300 inta u dhaxaysa sida la sheegayo taas oo cabsi weyn ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka dalka Itoobiya maadaama cunno yaraanta dagaalada wadankaasi ka socda iyo abaaro is gaadhgaaday caabuqa coronavirus dunida saameeyay iyo sidoo kale dagaalka Ukraine oo macaawinadii soo gaadhi jirtay ay naaqustay ay sabab u noqotay in dadkaasi ay xitaa noloshii maanta ee rajadooda ay gabaabsi tahay xaaladda guud ahaan dalka Itoobiya si weyn looga dareemayo sixir bararka iyo nolosha sii xumaanaysa ee dalkaasi aad iyo aad baad umahadsan tahay daawadayaal wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha xiisada xoogan iyo dagaalada xoogan ee ka socda gudaha dalka Itoobiya iyo sidoo kale maciishada cirka aaday iyo walaaca weyn ee shacabka Itoobiyaanku ay ka qabaan dalka Itoobiya iyo xaalkiisa uu noqon doono dhinaca kale madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Musdafa Cagjar oo maalmihii ugu dambeeyayba xukuumaddiisu ay qaban qaabinaysay shir loogu magac daray midnimo qaran isla markaana looga arinsanayo xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa gabi ahaanba fashil ku soo dhamaaday kadib markii xisbiyada waaweyn ee mucaaradka ay gabi ahaanba qaadaceen oo ay gaashaanka u daruureen ayna ku sheegeen in xukuumaddu ay doonayso in xisbiyada mucaaradka ay ka dhigto magacuyaal isla markaana iyadu ay mararsato habu socodka iyo waxa looga arinsanayo iyo ajandaha la iskugu imaanayo ee ay ka soo qayb galayaan xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale saamilida siyaasadeed aqoon-yahanka cuqaasha dawlad deegaanka Soomaalida wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha daawadayaal tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tagaynaa amaana Allah